Ramadan Kareem waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed guud ahaan inaan ooga warbixiyo kiiskii dilka ahaa ee shalay bacdul afur ka dhacay xarunta tan ee aynu joogno. Kiiskaas oo badi ay bulshada Soomaaliyeed laga marin habaabiyay looguna tilmaamay goob aysan waxba jirin, balse baaris dheer iyo dabagal dheer oo ay booliiska Soomaaliyeed sameeyeen la helay xaqiiqda kiiska. kiiskan wuxuu ka dhacay gudaha gurigaani waxaana isqabsaday labada shakhsi ee kala ah ay bulshada Soomaaliyeed u kala taqaano atooraha badda iyo Leeleefow oo ah ninka atooraha badda la jila filimaanta. labadoodii oo dad muxsiniina ay u soo diraan lacagyo ay ku caawiyaan bulshada Soomaaliyeed, balse lacagtaasi oo cadadkeedii batay khilaaf ka dhashay awgeed ay ku sababtay labadoodii inay isku gacan qaadaan dabadeedna uu nin ku dhinto. kiiskan sida ay bulshada Soomaaliyeed loogu marhabaabiyo oo ah inay shabaab ka qayb qaateen ma jiraan. gacan ku dhiiglahana wuxuu qirtay inuu dilka asaga geystay oo ay khilaaf dhex maray, dagaal dhex maray, mindi la isku dhuftay, kadib ay bistoolada soo dhex gashay. dilkana uu fuliyay gacan ku dhiiglaha hadda uu booliiska gacanta ku hayo. gurigan aan dhex joogno waxa wax loogu qeybi jiray bulshada Soomaaliyeed oo maati ah. sida ku cad warbixinta uu qoray gacan ku dhiiglahana wuxuu sheegay lacag 60 iyo ka badan 60,000 iyo ka badan inay dhexdooda taalay. uu dabadeed isku khilaafeen, uu marxuumku ku yiri shaqadan anaa bilaabay, anaa watay, anaa ogol waxayga sameeyay jiray ee iga tag adiga. iyo haddaan ka tagaayo wixii aan kugu leeyahay xaq aysi iyo kuma siinay kumbigu milid shaqada anaa qabsanay wixii hore oo inta Allah kugu anfaco. dabadeedna ninkan uu gacan qaad bilaabay, isqa qabsigii mindidii iyo waxay isku qabsadeen. mindi kan la baxay, kan mindidii markuu ka taagay halkaas uu ka gelshay, kan bistooladii la baxay hal xabad uu gacanta ugu dhuftay. maadaama uu ka xoog badnaa intii laalay uu bistooladina gacanta kala wareegay, dabadeedna uu 3 xabadood ku dhuftay. sida ku cadeed kiiska bistooladii iyo mindidii la isku dagaalay asagaana wacay booliiska Soomaaliyeed gacan ku dhiiglaha oo 199 wacay uu yiri atooraha badda la dilayna soo gaara. markii booliisku ay yimaadeen intaysa imaanin ka horna wuxuu dabaqada sare guriga saaray, saqafka guriga ku tuuray bistooladii iyo mindidii ay isku dhufteen. markuu booliiska yimidna wuxuu u sheegay in niman shabaab ah soo weerareen dileen, asagana uu ka badbaaday. arrinkaas oo aan sax ahayn oo marin habaabin bulshada Soomaaliyeed uu ku sameeyay. ugu dambeyntiina uu qirtay inuu dilka asaga geystay, saaxiibkiisna gacantiisa ku baxay. wax dhex yeeleen ay ahayd maal adduunyo oo dhan 60,000 iyo wax jajab ah la jiro. marka bulshada Soomaaliyeed waxaan xaqiijinaynaa gacan ku dhiiglin in gacanta lagu hayo maxkamadda loo horgeyn doono, marxuumkana inuu dilay asaga qirtay, kiiskan uu cad yahay, aysan jirin wax shabaab ah intii soo weeraray gurigan soo galay uu dilay marxuumka. afkiisna uu ku qirtay gacan ka dhiiglaha inuu asaga dilay shalay bacdul afurna ay dhacday. waa mahadsantii. shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. xirmada $1 waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah, 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah, 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah, 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. ugu shubo EVC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.